بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. waxaan kusii soconaynaa wuxuu ahaa zakadii baan kusii soconaynaa waxyaabihii oo zakadu ka waajibaysay ama laga sakeynayay baan haddii ilaahay yiraahdo kusii soconaynaa. maanta waxaan arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo zakatul athman ama zakat الأثمان أما زكاة الذهب والفضة والفضة وحكرون أركي دونا زكاة الزروع والثمار وحكرون أركي دونا زكاة عروض التجارة صدح ذا وحبان أركي دونا سيكو كوبان كتاب كأنه آد بوكو كوبان رنتي مدوال بوا آد بلارن بو نقون كراي هدي لدونا إن لبلاريو لا شرحو لغو خوغا لغو خيل دheeraado laakiin maadaama buug kitaabka mukhtasar yahay oo gaaban yahay inta yara gaaban uu tilmaamay baan isla fahmaynaa hadii ilaahay yiraahdo. marka ugu horeeya waxa loo yaqaano nisaabu dhahabi wal fidda. nisaab waxaan niri waa inta laga bixinayo waxa weeyaan يعني انتو كو غارايو maxay in laga zakeeyo nisaab waa miqdaarka ama qadarka uu ku gaarayo ama tirada uu ku gaarayo in laga zakeeyo weey nisaabkaas waanagi shuruudii hore qolkan ka sheekeynayna waanagi xaq ku soo aragnay oo masalan athmaankaas maxaa ku qoraa waxa ku qoraa de shuruudii baa ku qorayd shuruud shuruudihii iyo halkaas ku qoraa oo muxuu ahaa nisaabkii xawlkii haddii alla kuu roon yahay miqdaarkii iyo dee qofkan sakeynaya shuruudihii isagana looga baahnaa oo inuu de qof muslim aho maxay oo kada uu yahay diis marka imika athmaanka lagu sheegay haddaad athmaan maqashana waa labadaa baan nidhi oo kala ah dahabka iyo fidada mid walba sidee looga sakeynaya imisaa ka waajibaysa dahabka imisaa fidadana ka waajibaysa lacagta silverka weeyaan lacagta lagu sheegay waa taa weeyaan maaha tan waraqiga ah imika isticmaalo waa la bedeli iyada ama waa la gadi oo waxa loo bedeli waxa lagu qiimeeyay dahab baa lagu qiimeeyay soo ma garanin way takalina waxa weeyaan de waa lacagti weeyi dahabkiya lacagta mid walba imisa ka waajibaysa goormaana laga zakeyni waxa kale oo meesha soo galay kolka dahab laga sheekaynayo de wixii ay isku qurxinayaan ama haweenku ay xiranayeen alxulli waxa loo yaqaano ayaa isaguna soo galay waxaas ma wax laga mazakku noqon bis laga zakeyn maayo. طيب waxa lagu yiri marka waa nisaabu dahabka nisaabkiisu intuu zaka ku gaadhay 20 mithqalan waa 20 mithqal weey 20 مثقال محو يهي شرح هوس وان كو اركي دونا اما 40 دينارا 40 دينار او ذهب ودينار ذهب laga hadlaya ma دينار كويتي كما hadlayno اما الدينار البحريني كما hadlayno الدينار الذهبي وقالئ وفيه ربع العشر ماشي الطبنات ودك ها افر قيب ربع العشر هي اللي بحنايا مركز وهو نصف مثقال ونصف مثقال ده ربع مركز وجيس محي نقطتي نصف قاس يسرى نقطتي وفيما زاد وحي انت كبتانا بحسابه وحي انت كبتانا وهلكم بدك حسابيني مثلا وحي نقضي 40 مثقالا بو نقضي 60 مثقالا بو نقضي halka baad waxaad ku jaan goyni 20 ka mithqaal ama 40 ka diinaar baad ka dhaqaaqi marka halka baad ka wadi moogtahay وفيما زاد بحسابه والنصاب ورق 100 درهم ورقه ولا 200 oo dirham baa lagu yiri وفيه ربع العشر isagana ربع العشر garanaysa meesha tobnaad كوادر كذا اللي بحني أو ربع عيدا وهو 5 دراهم وده 2.5 كي بقول كيبا 2.5 كمركز وحويان 5 دراهم $5 بيسلا نقطة أما شن درهم باكب حية وفيما زاد بحسابه وحين تاكبتنا واد هل كان بعد كوادي وتسي كسر دفاني ماركت وحي كسو كرده
walaa tajibu waajib kuma noqonayso fi lxuliyi waxay dumarku ku labistaan ee isku qurxiyaan xuliyi lmubaax xulliga ama waxaanay xidhaan ay ku labistaan haweenku ee bannaan kama waajibaysa zakaatun zaka kama waajibayso zako kama waajibayso halkaasi haddii aan idhaahno saasay culimmadu wada qabaan noqon maysa muxuu ahaa arrin saxa jumhuurka waxa ay qabaan inaanan laga zakaynaynin haweenku waxa ay ku labistaan oo dahabka ah soo ma garanin waayahay bacd alculamaa oo mucaasiriinta uu ka mid yahay sheekh ibnu baaz oo kale iyo raximahullah a'immadii horena sheekh muxuu ahaa imaam abu xaniifa oo kale ay ka mid yihiin waa ay qabaan in laga zakaynayo haba sida looga zakaynayo haba la isku khilaafsanaado mar keliya laga bixinay see la samaynay ilaano wixii waa waxay xidhan tahay haddii sanad walba ka sake leedha wixiiba inay intii ay ku soo iibsato wax ka badan hadeeta yaa laga yaabaa ma ogtahay marka kayfiyadu waa meel oo waa gaar laakiin wax weeyaan laga zakaynaya bacd ulculamaa oo qabaa way jiraan kolkay bahasho ay maaragtay ay wax fiican oo badan uu yahay bay leeyihiin laakiin jumhuurku oo ay hormood ka yihiin saddexda imaamu maalik iyo shaafici imaamu maalik imaamu shaafici oo imaamu oo imaam axmed ibnu xambal ay ka yihiin waxay qabaan inaan waxba laga zakaynayn nusuustuna taasay u badan tahay saxaabadiina waxaa looga joogay maaragtay hadday tahay sayida caaisha hadday tahay muxuu ahaa cabdillahi ibnu cumar haddii ay tahay muxuu ahaa asmaa yacni xulliga ay hablaha ay mas-uulka ka tahay ku qurxin jirtay baa layidhi ilaa iyo 50,000 baa laga hadlayaa baa la yidhi 50,000 oo lacagta markaa ahi waa xoolo ilaahay oo badan moogtahay marka yani halkaa weeyaan halka culimmadu ay leeyihiin xataa hadday badan tahay oo waxaan loogu talagalay lil isticmaal waxba laga zakayn maayo laga zakayn maayo waxaa kaloo ay taa maaragtay u cuskadaan waxyaabaha kale ay haweenku isku qurxiyaan ee maaragtay mujawharaadka kale sida maaz iyo maxaan ku idhaahdaa ay diamond yaasha noocyadiisa kala gedinaya waxaas adigu aadka u qaaliga ah cidina sakaa laga bixin ma odhanin marka tan yare dahabka ee islaantu dumarku isku qurxinayaan maxaa iyada daba dhigay bay culimada qaarkood leeyihiin waxba inaan maaragtay aanan hawshaas laga farafaraynina waxay isku qurxinayaan ha iska wataan oo kale taasina marka waa intaas والنصاب الزروع باسوهر وحلا لا الزروع وحي دولك كسو غاي وحي دولك كسو غاي oo wixii la beeranay beerihii weyn wixii ka soo go'ay wixii la beertay ma garanaysa iyo wathimar muraha 5 awsuq 5 ratirar ratiga ma la garanaya ya wala yaqaan isaga fariid 5 awr way ratigu waayahay shantaas oo mid walba dhinac laba kiisho waaweyn baa dhinacyada ugu raran soo maaha marka waxay isla noqonayaan maxay imise jawaan bay isla noqonayaan iyadoo oo muxuu ahaa inta ay noqonayaan miisaan ahaan ku noqonayaan baa inoo iman doonta markaasaa bal la garan doonaa inay wuxuu jawaan buuxa tahay mid walba iyo inay wax ka dhiman yihiin waayahay marka shantaa ratirar wahiya 1600 ridlin 1600 oo rodol baa la yidhi rodolka bil ciraaqi kolka ciraaqiga lagu xisaabinayo waa dee maadaama ay meeshii caasimadda islaamka ahayd meesha ay wax ka kala soconayeenna ahayd meesha wax lagu jaangooye ayayna ahayd waqtigaas sida maaragtay wall streetan iyo maqashiin iyo howlahaas oo kale waayada ahayd ma garan وفيما زاد بحسابه وحي انت كبدنا دي waxa weeyaan waa halka baa laga dhaqaaqayaa zarciga ama waxa la beeranayo laba siyood buu ku yimaadaa labada siyood waxa weey in roobka soo da'ayay aw waraabiyay oo ku baxday ama biyo iska durdurayo oo durdurahoona dadku ayna dhibaato u marin ayay ku baxay iyo waxana ku baxay ma garan haddii ay maaragtay sidaa iskaga baxeen xoolahaasi oo biyahaas durdurka ha noqoto ama se waxa weeyaan roobkaa soo da'aya ha noqoto aanan wax dhib loo marin hadduu ku baxay waxani markaas waxa weeyaan waxa
waxa la bixinayaa jawaanka tobnaad baa la bixinayaa baa la yiri ka tobnaad baa la bixinoo 9 baa kugu soo hari haddii laakiin dib loo maray waraabinteeda oo amade mashiina iyo adduun la dalacaya iyo alaab maaragtay naafata lagu shubaya iyo waxaasoo hawlaha taqaanaan oo yaa ceel loo qoday waxaasoo dhan waxa weeyaan nus baa la bixinayaa nisful ushri baa la bixinayaa nisful ushri wa in suqiyat biduulabin haddii dawlis lagu waraabiye oo biyaha loo soo maaragtay oo nadxin nisful ushri amase waxa weeyaan qalabkani maaragtay saa u socday rushaya maxaa la yiraahdaa kuwaas ilaa waxba ku baxaya ma ogtahay waxa ku socdo oo dhan adigu haddii uu hedel loo maray waxaan hawli ka gashay iyo kharash ka galayna waa nus baa leeyahay haddii ay daral iskaga baxday oo roobka da'ayay iyo biyaha iska socdo oo kale oo ina dhibi ka gaadhay ku baxdayna waa meesha tobnaad baa la bixin baa leeyahay taasina waa intaas waxa noo soo haray marka wax loo yaqaan uruudu tijaara businesskii amase waxa weeyaan wixii dukaamada yaalay waa kuwan dukaamadii meelahan soo socday alaabtii dukaamada taallay maryihii iyo hawlihii maaragtay weelashii maacuuntii iyo waxaasoo dhan see looga bixin zakada zakaa ka waajibaysa ilayn zakadeedii see la yeelaya wa tuqawamu waa la qiimayni curuudu tijaarati wixii maaragtay dukaanka ku yaala alaabihii dukaamada yaalay ama alaabihii jilmada ahayd meesha iibinaysay adigu waxa alaabta iibka loogu talagalay waa la qiimayni goorma cinda aakhir alxawli sanadku markuu soo garo bisheeda marka la gaaro marka bisheeda la gaaro la qiimeynaya ilaan waxaanay oo dhan waxa u asala inuu xawalaanul hawl ba u asala moogtahay xawalaanul hawl in aw sanad u soo wareego oo bisheedii la gaaro bilaha lagu sheegayaana inta badan si ay bahalshu u fiicnaato waa ina bilaha qamariga alla ilaaliyo baa leeyahay bilaha qamariga islaamiga in la ilaaliyo wa tuqawwamu uruudu tijaarati inda aakhir alhawl bima ishturiyat bihi wixii lagu soo iibsaday lacagtay ahayd noocay ahayd wixii oo dhan baa la qiimeeyay amase waxa weeye xoolahan yaala waxay waqtiga joogan baa lagu qiimeeyay adiga oo ka dhaqaaqaya maxay lacagtii aad ku soo iibsatay noocay ahayd hadaa diinaar ku soo iibsatay diinaar badeed ku qiimeeyay oo marka lacagta meesha aad joogto u bedeli adigu marka wixii adiga isku bedelay ma ogtahay marka waa in muxuu ahaa aakhirka sanadka aakhirkiisa saas loo qiimeeyo ويخرج من ذلك ربع العشر وحين marka halkii lacagta la raacinaya oo waxa weeyaan 2.5 ka bay gali doona lacag ahaan baa loo bedeli halkii lacagta marka la raacinayo inta la bixinayo lacag bay noqonaysaa marka ilaa soo qaadi mayso diracani baan saka u bixi moodhanaysid ma ogtahay ama gisidan aan saka u bixi moodhanaysid ma ogtahay marka waa inaad lacag u rogto wixii lacagtiina marka intii lacagta loogu talagalay in laga bixiyo marka aad ka bixiso warka ma la isla fahmay mararka qaar kood waxa soo baxda وهيدان iyo dawaad maqasheen buuraad dahab noqday iyo Soomaha dad buu Ilaahay alaab uu soo daayay dhulkii uga soo daayay iyo qaar ay faruhu ku murxeen oo buuro un qodaya gawda un hay marka waxyaabahaasi la helayo dahab ya Ilaahay ku siiyay oo laga helay dhulkii ama rikaaz waxa loo yaqaano rikaaz waa maxay qalab aad u qaali oo dahaba ama lacagtii oo umadihii hore ay ku aaseen dhulka buu Alla ku soo maaragtay سو ما حسوستان خضر مركي أو قلادي وتجين محوها هاي وإحنا صيا يدهدين برية يدهدين برية ده وديدين هوا كده قدر سيدعي أنتوا أركي وكيها جاجي مع كل كي أو معناها أرنتها شيء جايين محو يلي كنز لهما بعماشة كجرة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه وكالكاس مارك مركا كنز جاس وكلوا إلى كسي ساد يالي مركا ما تسكاه يسن مس واحد كبحني ما ينا بحويان بإله دولكي بفكا جاسوسي أويشان يو جاس يأدون كاس سيلا سمين يدنا ما هو صنبت هجلي ما والله ما هو يقف قدام بدرونه وحين نجاري وتقرني يوم بدرونه خلاص مايا مساكين ده أنت دي وين لبحيها أنت مساكين توين حقي دي وين لبحيها أو ولي مركب لبحيها سند لولا ما سوق يجا كنزبوا إلهي كسيه
rikaas kaasaad heshay isla markaabaa la bixinayaa waayahay wama stukhrija wixii laga soo saaro oo min macaadini الdahabi wاlfida dahab iyo fida ah yukhraju minhu waa la bixini rubcu اlcushri sidii dahabka unbaa loola mucaamali waa dahab amase waa lacageed midkuu yahay unbaa la raacinaya rubcu cushrigiisa fi lxaal isla markaa la odhan maayo sanadka soo wareega imikaan helay bal intaa waan kusii shaqayni sanadkaa soo wareega maya markaaba waa inaa laga bixiyo wamaa yuujadu wixii la helo oo min arikaazi rikaaska dhulka waxa lagu aasaana fa fiihi alkhumus meesha shanaad ma garanaysaa khumus meesha shanaad baa la bixini wixii alla kaa siiyo dhulka isagoo ku aasan waxalla wax kaaga maaragtay hadday ugu badato dee inaad meelahan mala waxbaa ku jira amase dee saad wax iskaga qodaysad guri dhisanaysay amase foos iyo waxaad qodaysay unbaa dalam aad u tiri muxuu ahaa alaab barye lagu xereeyey meesha marka waxaasoo dhan waxa weeyaan muxuu ahaa wax ad inkaari ama aad diidi doonto ma aha xuquuqdii masaakiinta markaaba waa laga bixinaya meesha shanaad hoostaan ku arki doonaa khumuskani waxay tahay si ay sakadu aan muxuu ahaa aan sakooyinka la bixinayo si ay nooga dhammaato fasalkan yar waan ku daraynaa leannu waan haysanaa waqti baan filayaa watajibu zakaatu lfidri zakaatu lfidridu waajib bay noqoni bihalaathati ashyaa 3 arrimood bay waajib ku noqotaa alislaamu qofkani inuu islaam yahay muslim yahay qofka laga rabo inuu bixiyo wa biquruubi shamsi min aakhiri yowmin min shahri ramadaan iyo inay cadceeddii dhacday oo maalinka berri waa ciid la leeyahay maqribkeedii la gaadhay waa waajibaad waajib markay noqonaysaa laga hadlaya ma la sii bixin karaa taasi waa baab kale waa la sii bixin karaa ha waanad aragteen deedoo waa ka la sii wada diro especially marka dibadaha loo dirayo waad ogtihiin wa wujuudu lfadli qofku waa inuu haysto si uu zakaatulfidri u bixiyo maxay inuu haysto can quutihi wuxuu maalinkaa cuni lahaa wa quuti ciyaalihi iyo caruurtiisa waxay cuni lahayd في ذلك اليوم مالك عيد وحيا وحنا wax ka badan waa inuu hayo ويزكي dadka laga zakeynayna waa ayo عن نفسه naftiisa وعمن تلزمه iyo dadka ay waajibka ku tahay nafaqatu inuu beeliyo oo min almuslimiina faamiligiisii iyo cid ku tiirsan haddii ay jirto oo waajib ku tahay inuu isagu markaa beeliyo saacan galaan magacii kale muxuu ahaa meelaha qaarkood looga yaqaanay saac galaan yo ka dare saac galaankaas min quuti baladihi oo quudka waxa meesha laga cuna waxa meesha la galaan ha galaanki aad baxad xatimo ku gooy galaan soo aad ma garanaysid ka wax lagu meesmeesade la haruurka iyo weelasha soos ha waayahay waxa la weydiin ragga oo maaragtay howlaha aad u yaqaane saacan min quuti baladihi cuntada laga cuno waa haddii lagu bixinayo cunto lagu bixinayo culimada qaarkood in badan oo ka mid ahna cuntaha lagu bixiyo yidhaahdeen laakiin waxa weeye kolkay culimadu aad arrinta dee ay u baadheen waxa weeye runtii qofka la siinaya waxa u nafci badan in la eegaa fiican bay yidhaahdeen qofka qolooyin kiishashka la wareego oo ninkan uu dhabar ku qaadi jiray iyo way jirtay oo iyagu aanan lacag iyo waxaas maskaxdooda marka waxa weeye lacagtaasi qofkan wax la siinayo wixii u faa'iido leh ama yani isagu uu habbi ku yahay in la siiyo ayaa fiican bay yidhaahdeen culimada mucaasiriinta badankoodu iyo dee culimadii horena qayb ka mid ihi laanna waayadaa hore waxyaabahan xataa la kala iibsanayo mucaawada jirta waxbaa la kala bedelanayay masalan neef adhiyaan ku siinayaa waxaad siinaysa masalan intaasoo kiisho masalan haruura maxay wax caynkaas ayaa baryaha jiray oo dee lacaguhu inta badan meelaha qaarkood aad bay naadir ugu ahaayeen marka waxbaa la isdhaafsanayay saas oo kale marka xoolaha waxa lagu bixinaya wuxuu ahaa cuntooyinkaasay ahayd cuntooyinkaas waqadru 5 artaalin waa 5 rodol wa thuluth iyo 1/3 oo maaragtay bil ciraaqi kolka ciraaqiga lagu xisaabinaya marka maxay yihiin kuwaasi halkan hoostu noogu yar sharxi doonaa sheekhu ku arki doonaa insha Allah fiikum marka meelihii aan ka hadalay baabka ugu horeeya oo ah dahab iyo fido
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا إلى 20 دينار أو ذهب أي وحاقو قاريان فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول سنة كنو سوريغو ففيها نصف الدينار دينار نسكي أياتك بحنيسا فما زاد فبحساب ذلك هديت واد حسابهم 20 أفرتن صد واك وهكذا معناها هداد صد 20 دينار سوما هين hadday 30 noqoto dee waxa weeyaan waxaad bixin uun 20kii intii laga rabay iyo half muxuu ahaa unbaad dee bixin waayahay wadinaaru huwa almithqaal mithqaal baa la yidhaha wayusaawi wuxuu la siman yahay diinaarku wadinaaru huwa almithqaal waa mithqaalke ama mithqaal ama diinaar dhaho maadaama isku mid yihiin wayusaawi al'aana 4 giraamaatin min aldahabi taqriiban 4 giraam oo dahaba buu la siman yahay 4 جرام oo dahab ayuu diinaarkiiba la siman yahay ama garan marka de kolkaad ku dhifato muxuu noqon 20 aad ku dhifato waka 200 ee lacag ahaan iyo wax lagu bedelay halkaas ku noqonaya maadaama lagu dhaafay 4 ta lacagtu way soo socotaa iyadu ta lacagta 85 bay noqon doontaa gram في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وحو قري في الرقة ربع العشر لعقته وفضة فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وقال يا سغاشن حتى هدوها يستقفكو waxba wali kuma waajibin inuu isagu de iska falanteer gareeyo bixiyo un mooyaan waxe ma garanaysa ilaa 200 ay buuxsamayaan waa tii lacagta lacagta fidadan ka hadlaynaa hadda lacagtan silverta ama lacagteena yar yar ma $200 iyo lagama hadlayo ma garan waayahay ilaa an yashaa rabbuha وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة 5 وقيادات وحي كير صدقة كما واجبيسو أواققاسي انت يتاهي وان أركينا مركب والرقة والورق الفضة لبدا مقاعد ورقي الرقة دا مقلي سيدي لعقون بالغا ودا فضة أواقنا جمع أوقية وقياد ويجري جرتو الله مقلي جري سوما وضيا رجع يجي هروان مقلي جري روان قرانين هوان مقلي وقياد جمع أوقية وهي 40 درهما 40 درهم وهي وقياد لغو شيغي الحلي المباح هو كخاتم فضة للرجل حلق مباح لغو شيغي حلق waxa la isku qurxiyo ee banaan laakiin xalaasha أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة أما ججمة ما garanaysa ama duubab waxay dumarku gashadaan halkan yaa la yiraahdaa kuwaas shuuliyada kuwaas dumarku ay gashadaan ولا زكاة فيه زكاة كما واجبه لما رواه الدارقطني مرفوعا والبيهقي موقوفا من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي زكاة كما واجبه حليقة وحي أي دمركو يسو قرحنيين هلكا وصنا واكا كله وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة halka waa zuruucdiba loo tagay moogtahay wixii un ka yar 5 ma garanaysaa ratirar ama awr inta aw qaado awrkiiba de waxa weeyaan 5 awr intay qaadaan oo min tamri sadaqa yani 5 kiisho waaweyn ama 5 jawaande kiishku waa kontonke boqolkuna waa jawaanka loo oran jiraan malaynaya wa fi riwaayatin inda muslim laysa fi habbin wala tamrin صدقة كما واجبيسو حتى يبلغ 5 أوسق إلى 5 أور وحا أي قادة لقاريو مارك والوسق 60 صاعا بالغول وسق قلقو شاقي لحدا قلان وي قلان وح لو كلا بيكتو محا كلو مقع كلا محوها شيخ جامعو قلان ما هنا محا كلو لورنج سوس ملاها وكا mid gaar ah laakiin galaan la yiraahdaa oo waxa lagu yiri marka numberka 1 wa tusaawi al-aana bil wazni 750 kilogram taqriiban bay la mid tahay baa lagu yiri waxaan lagu sheegay ee la yiri intaasoo Iraaqiya lagu lahaa 1600 ridlan bil Iraaqiya lagu lahaa waxay u dhigantaa baa lagu yiri 750 kilo midkiiba الصيح لغو شيغي waxa lagu yiri الماء الجاري وبيها صعونيا على وجه الارض دولka iska dul socda musabban oo ka soo shubmaya min jabal
بور أو نهر عظيم أما وبي وين. والنضح الاستخراج بآلة من بئر ونحوه. نضح هذا مقشنا واتن لسو صار أما الدولس لغو سو صار أو مشينها لغو سو صار أدو كل أون هذا أو كبحي. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري فيما سقط السماء وحي أرلض السماد ورابسي والعيون إله أو كان عثريا أما عثريقنا ومدركا اسكسو دا أيا ليدي الذي يشرب من المطر روبك وحي كبحي مقارن فيما سقط السماء والعيون عثريقنا وديتان كيون وي لكن سقط السماء وضعنبو سيقل أياي أو كان عثريا أما عثريقاس أو روبكاس كد أيا وما سقي بالنضح نصف العشر طهورة وحوين فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر بالغ بحنايا هل كاكو جوجي ما قرنيسا وما سقي بالنضح وحيل ولا ورابيي يعني أما مشين لغو سو بخي أما اون ما قرنيسا بالنضح نصف العشر انت هاف كيد بالغ بحنايا وعند أبي داود أو كان بعلا العشر أو كان بعلا كان waxa lagu yiri waxa weeyaan waa wixii lagu ay waraabisay roobku caadiga waraabiyay weey فيما سقط الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانيه نصف العشر يعني wixii dadaal loo marayna waa haaf wixii aan dadaal loo marinay maaragtay raxmada ilaahay ay waraabisayna waxa weeyaan waa intaas laga bixinaya عثريا الذي يشرب من المطر ولا يتعنى في سقيه وهو البعل قال يراهداي وكوا روبك ورابيه ويان ايا لغا ودا الغيم المطر وي الثانيه ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه بيها waxa lagu soo saaraa ثانيه la yiraahdo ثانيه وتخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب زبيبا والرطب تمرا inta ay wali qoyan yihiin ee ay muxuu ahaa yihiin laano dhawaan wasnigooda iyo wax oo dhan way yaraan doonaan oo baalkilen intuu cinabka yahay baa la miisaami hadii la yiraahdo hodhow zabiib markuu noqdo wax yar buu noqon doonaa intan yar buu noqon doonaa xabadiiba marka ilaa ay cinab ka noqonayaan waa loo sugi baa la goori ma garan timirtuna markay hadeeta timirtii caadi ahaan timir ahaan loo cunay ay noqoto ayaa loo sugiye intan ay wali minaseefta tahay ama se ay gacayrta tahay ama maxaa kale oo la yiraahdo noocan wali cawlan eenan wali si fiican u noqonin tamr nooca intay tahay waa loo sugi baa leeyay marka waa inay timir noqoto وتخرج زكاة الثمار بعد ما يصح العنب زبيبا والرطب تمرا وزكاة الزروع عند الحصول عليها قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده مالك أدقوسانيسان أما مالك الديارينيسين تنتين كبحية الزكاة كبحية حصاد حقيسي كبحية مالك سوق قوض لغا موضا مالك لأنه debrihii hore inta la gooyo oo meel lagu tuulo ayaa muddo hadana madaxa ka gooyo maxay oo hadana muxuu ahaayay ama deemaani wali lagu sameeynayo wax lagu tumayo oo markaas adigu waa markuu diyaar noqdo ee inta kiishu noqonayo iyo wax oo dhan la ogaado markaas way marka laga bixinayo zakadii من النقد فإن اشتراه بالذهب فإن اشتراه بالذهب قوم به وحقوق قيمين اون haddii ay ahayd soo arka ma ahayn hadduu dahab ku soo iibsay dahab waa lagu qiimeynaa waxan u yaala guri waxan dukaanka u yaala wa in ishtaraahu bil fidda hadduu ku soo iibsadana qawama biha wuxuu ku qiimeyn wahaakada hadduu lacag dollar ku soo iibsado dollarkii baa lagu qiimeynaa alaabta u taala dharkan u yaala dukaanka kama law ishtaraahu bin naqdin suuriyin aw ghayrihi ليرة سوري هدوك سويبس ليرة سوري تركي هدوك سويبس whatever فإنه يقوم بما اشتري به يقوم على قيمين بما اشتري به أو بما اشترى به وحياه كسويبس دي قفكم مالك وكسويبس دي ولا يقومه بما اشتراه به من عرض ونحوه ولا يقومه بما اشتراه به من عرض وحو يسوي كؤيبيي ma garanaysaa maahay wixii uu ku soo iibsaday baa lagu qiimeynaa xoolaha ku yaala macdin hadaad maqasho baa lagu yiri min al-adun bay ka imatay waa al-iqama waa wax deganaanshaha meesha wixii degana waa fi al-asl ismu lil makan alladhi khuliqa fihi waa meeshi lagu abuuray
الجوهر جوهرته من الذهب والفضة وغيرهما جواهرته أو الذهب يوحي لمدة يد بحرها كلا دائما كيو سمي بذلك لإقامة هذه الأشياء فيه وأطلق على الجواهر المستخرجة منه من باب إطلاق المحل على ما يحل فيه للمجاورة والمراد به هنا الذهب أو الفضة يعني ماشي معدن بالد ماشي كجري بقى لوغا مقع دغاي waxa looga magac dhigana waxa weey meeshii iyadii baa laga soo qaaday wax kaliya laga soo qaaday oo isku mid ah saasa magaca ugu baxay oo macdin loo yiri warikaaskuna waxa weey bimaana almarkuuz waxa meesha lagu kaydiyay ama meel lagu aasay oo fi luqati min arrakz wa huwa algharz wa thubut in la geliyo meel laguna sugsiyo oo meesha waxaas uu ku daa'imo fakaanahu rukiza fil ardi wa iyadoo arlada lagu qariyay ma garanaysa ha ay غرز فيها وكو آسي أما وكو beeray oo kale qarziga beerista la yiraahdaa laakiin tan waa wax lagu qariyay ilaa waxa la beerayaba marka hore waxa la galiyaa bidrada ilaa dhulka la galiyaa lagu sawmaha ama haday geed tahay ama haday bidradan kale ay tahay mid ay doonto ha ahaato marka wax dhulka lagu aasay weey وهو شرعا المستخرج من دفين الجاهلية ذهبا أو فضة عادي هانا waxa laga wadaa wixii umadii hore ay ku aaseen dhulka oo ama dahaba ama lacag ah wal aslu fi wujubi zakati fihima waxa wasakada ku waajibinayna waxa weeye naska ay ku waajibatay qowluhu ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu alayhi nabi kuwa rumeeyo anfiqu bihiya min tayyibati ma kasabtum waxana shaqaysateen kiis wixii ee wanaagsan xalaash ah yaani ka bixiya wax iyo ومما أخرجنا لكم وحان دين كسو ساري من الأرض أرلدا وحان نيغا سو ساري مركا معدنتا iyo rikaaska iyo wixii kale ee dhulka ka soo baxay zircigi waxa soo dhamay koobsanaysa aayad waxaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wa fi rikaaz al khumus rikaaskana khumus kaasa laga bixin baa lagu yiri meesha shanaad baa laga bixini yaani wixii halkan dhig meesha shanaad bix adiga ba Allah ku siiyay kolka hore maad ogeyn moogta marka wax fiican baa laga bixinaya al-ajma hadad maqasho al-bahima la yiraahdaa oo halkay ku taal ajmaadu jurxu al-ajma'i xayawaanku wixii aw dhaawaco ama aw dilo jibaarun wa hadar weey wax ka soo qaad male haduu awrku cuno loo qabsan maayo laano mas'uul ma aha haduu laakiin waxyaabaha qaarkood waxa laga yaabaa in qawaaniin ka jirto hadii la og yahay inuu awrkaasi awr dad cunaya oo lagu sii daayo dad ilaashan weydo taasi waxa weeyaan kulli laakiin uu ku jiiray si un bay wax u dhaceen ma garanaysaa kulliiba iyadu wax ma aragtay wal ma'dinu jabar macdanta iyo wal bi'ru jabar ceel baad ku dhacday ama ceel baa kugu dumay macdantii la qodayay baa ma aragtay waad maqashaan mar walba iyadoo la qodayo intaasoo mitir hoos loo qoday bay ku duntay maxay waxaas oo dhan kulli xeerar baa ka jira oo xagga dawladaha iyo waxaas laakiin waxa weeyaan oo safety-ga iyo wixii oo dhan haduu wax walba oo ka yahay oo ma aragtay cid daran ya meesha ka muuqanin yani waxa la leeyahay hadii qofkii ma aragtay ceel ku dumaba ceelkan cidii lahayd ee qodatay la oranayo waa la isla dhiman moogtahay laakiin wixii uu safety-ga ilaalinteeda iyo waxaas kulli uu imika sheekooyin waxooga ka gadisan way وتخرج زكاة المعدن والله بحني زكاتي معدنته يو الركاز فور الحصول عليه مرة لمرة له وبعد تصفية المعدن من شوائبه انت لقى السفايو وحي كجري عيدي وحي كلك لقى السفايو انه انت الذهب هانت اسكو سو هادو مركاس على قيمين مركاس هذا لقى بحني والاصل في وجوبها سكادة الفطر ده واجب وحا أصل وحا وين الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه فرض واجبي زكاة الفطر ده هي من رمضان ومن رمضان كل زكينيو على الناس ده كو واجبي إمسو واجبي ساعاس قلان كاس أو من تمر تمرة أو ساعا أما قلانو من شعير هيد هي على كل حر قف كستو حرأة أو عبدنا ما أدونه كلا دكيها يستاك بحني ذكر لب أو أنثى أمردتك وفي رواية صغير هاي هذا قف كاسي أو كبير ما هو ينادو ومن المسلمين تاعي قف وينو مسلم هاي وينو محوها هاي رمضان نسوق قاري وي انتان لغو هدلين
إن لو أورن بري رمضان أن لو أورن وحيد شيء يدو ولي أن لا عدينها دور دشو وين لقى بحي والك بري رمضان هدي اللي يري قف كيد بدشاء لقى ما بحنا يو حبل لقوا ماله على كل حر وعبد ذكرنا وأنثى وفي رواية صغير وكبير من المسلمين عند البخاري وأمر بها وأمر النبي أن تؤدى إن لبحيه قبل خروج الناس إذا تكون تاني أبحن إلى الصلاة إلى صلاة إن تاني أبحن صلاة الدبدة هدي لبحيه وإسك الصدقة وكيل ليلي هدي أنت كور رسالة بحينا واتي مقبول كايد إسكدي فدر دي مقبول كايد بين قنيسة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحده كنا وحن وهين نخرج وبحيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي يوم الفطر مالنت الفطر صاعا من طعام كلان أو عنتان بحنجري وكان طعامنا طعام كيجوحوها هي الشعير هذا والزبيب يا زبيبك والأقط قرورك قرور معها عانق قروره قوين معها ويقول إنجيل ويا نصدنا عن نيدوغي وحيابها سوى ميسي كاسوي لكن أصل كيسي عانها لفريسي أو ده ماركتي مركز دنبنا بدن نقضي وي وتمر يتمر يد وحيابان كلا عد غالب قوت البلد بس دي سبب الله dad meesha dadku waxay ka cunaan waxa ugu muhiimsan ugu badan marka de bariiskaas lagu bixin daqiiq baa lagu bixin oo laxooxda iyo canjeeradii laga dubto waxa kale oo maaragtay garow dadka maaragtay iska baadihi meelaha u badan inkastoo garowgiiba waayadatan malaha uu sii dabar go'ayo malaha masango way garow hawa lagu yaqaan وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر marka halkaas aan ku daynaa hada billahi tawfiiq sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.